qisadan maanta aan idin wadno waxaa la yiraahdaa qisadii Cali Agoon. waxaan rajeynayaa insha Allah qisadan inaad si fiican ugu tixnaan doontaan, wax badan aad ka faa'iidi doontaan. haddaad ku cusubtahay channelka walaga soo horeeyay mooyaan lagama xigo subscribe saar, insha Allah wax badan baad faa'iidi doontaa. gambaleelka ka xiga dhinaca midig calaamadda casaanta ee subscribe-ta ku dhufo si mar walba ogeysiisku kugu soo dhaco wax allaale wixii cusub ee la soo geliyo. qisadii Cali Agoon ku soo dhawaada. nin ayaa waxa uu guursaday laba haweeney, waxa ay kala dhaleen laba wiil oo aad isugu eg oo aan la kala garanaynin. waxa uu u bixiyay hal magac oo Cali ahaa. aabihii waa uu geeriyooday, kadibna waxa geeriyootay mid ka mid ah labadii xaaskii soo hartay ayaa isku korinaysay labada wiil. hase ahaatee xaasku waxay aad u jecleed wiilkeeda oo ay rabtay in aanay isku si u xanaaneynin, isku cunto aysan siinin oo cuntada ugu roonaato wiilkeeda. balse dhibka jir waxa uu ahaa ma aanay kala garanaynin labada wiil, aad bay isugu ekaayeen. waa isjirisiisay oo xanuun bay isku riday. labada wiil bannaanka ay ari ku raacayeen. xilliga quraacda ee ay soo galeen ayaa kii ay dhashay ku soo leexday oo ku yidhi, hooyo sidee lagu hayaa? waa sidii ay rabtay. calaamad ay diyaarsatay ayay dhegta uga dhajisay si ay u ogaato mar kasta wiilkeeda. maalinka kadib waxa fiican oo idil wiilkeeda ayaa ay siisanaysay, waxa xun wiilka kale ee labada dhinac agoonka ka ah ayay siinaysay. wiilkii waa uu dareemay sida ay yeelayso eedadiis. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay wiilkeedii siisatay muufo aad u wanaagsan, wiilka kalena muufo liidato. Cali Agoon waxa uu la hadlay walaalkii oo ku yidhi, waxa aan cunayno waa muufo soo ma ahan, mid walba tiis ceelka ku rido si aan u aragno sida ay noqoto. wiilkii hooyadii nooleed ayaa ku riday salka biyaha ayaa ay degtay. Cali Agoon ayaa ku riday, hoos uma degin, korka ayaa iska joogtay. waxa uu yidhi, aboowe sidaa aad u jeedid muufadaadii ceelka waa ay ku dhacday, maxaa yeelay waa ay wanaagsaneed, sida ayaan u degtay qalbiga hooyada. balse aniga muufadeyda ceelka kuma dhicin, sidaana qalbiga hooyada uma degin. marka walaalow aniga waan iska tegayaa, halkan ma joogi karo si aan u dhibin hooyada. walaalkii ayaa yidhi, aboowe kama maarmo, ha iga tegin, adiga iyo aniga ayaa walaalo ah. Cali Agoon waxa uu yidhi, waxa aan tiin ku talaalayaa ceelka hortiisa. haddii aad aragto tiinkaas oo cagaartay oo qurxoon, waxaad ogaataa aniga nolosheedu ay qurxoon tahay. haddii uu qalalo ama isbedelaan, waxaad ogaataa nolosheedu waa ay isbedeshay oo waa ay xuntahay ay soo raadi. dardaaran fiican buu uga tagay Cali Agoon. qalabkiisa iyo dharkiisii ayuu qaatay, socod dheer ayuu bilaabay. markii uu muddo socday ayaa wax uu arkay nin meel qalalan ari ku raacaya, meel kale oo doog ahna u dhowdahay. ninkii ayuu weydiiyey waxa sababay meesha doogga ah in uusan ariga ku raacin. ninkii waxa uu ku jawaabay, halkaa bahal ayaa degan, marka waa aan ka cabsanayaa. Cali Agoon waxa uu yidhi, ii tilmaam halkuu bahalku joogo. waa uu u tilmaamay, halkii ayuu tegey, bahalkiina ku dilay. ninkii aad ayuu ugu mahadceliyey, waxa uuna siiyey neef ari ah. Cali waxa uu yidhi, ii haay neefka, markii aan soo laabto ayaan kaa wadanayaa. socodka ayuu sii waday. waxa uu arkay nin raacayo lo, hase ahaatee meesha doogga ah kuma raacayee meel abaar ah ayuu ku raacayaa. waxa uu weydiiyey waxa ku kallifay. waxa uu ugu jawaabay in halkaa sidii oo kale bahal uu joogo oo la tegi karin. bahalka hooygiis itus ayuu yidhi. waa uu u jeedsiiyey, halkii ayuu tegey, bahalkiina ku dilay. markii uu soo laabtay ayaa ninkii lo'da lahaa u mahadceliyey, waxa uuna siiyey neef lo ah. sidii si la mid ah ayuu Cali socday. ayuu Cali ka codsaday inuu neefka lo'da ah u hayo, markii uu soo laabtana uu ka wadan doono. Cali Agoon socodkii ayuu sii watay. waxa uu arkay nin geel la joogo, hase ahaatee meel abaar ah ku ilaalinayo, agagaarkiisana dhul doog ah aad u barwaaqo ahna u dhowdahay. waxa uu u sheegay in keentas libaax looga baqaayo. Cali libaaxii ayuu u tegey, halkiina ku khaarijiyey. ninkii geela iska lahaa aad ayuu ugu mahadceliyey, waxa uuna siiyey hal. Cali waxa uu ka codsaday in uu u haayo neefkan geela ah, markii uu soo laabtan uu ka wadan doono. Cali Agoon socodkiisii ayuu sii watay. waxa uu gaaray tuulo. waxa uu ku leexday ceel oo uu hor fadhiistay. waxa uu maqlay ooyin. haddii uu fiiriyeyba waa haweeney aad u qurxoon oo ooyeysa. Cali Agoon gabadhii ayuu ku leexday. waxa uuna weydiiyey sababta ay la ooyeyso. waxa ay ugu jawaabtay, ceelkan oo ay tuulada ka cabto waxaa ku jirta abeeso weyn oo 7 madax leh. ceelka lagama cabi karo shardi mooyaane, kaasoo ah
in maalin walba ay hal gabadh nafteeda isugu tuurto si uu maalinta ugu qadeeyo kadibna ay biyaha ka cabaan dadka tuulo degan. maantana waa doorkeyga oo hadda waxa aan sugayaa inta ay ka soo baxayso si aan isugu tuuro. Cali Agoon waxa uu yiri ma dhici karto, tuulada dhan ma laga waayay hal qof oo ka takhaluso. gabadhu waxay tiri maya, khatarteeda ayaa badan. Cali Agoon waxa uu yiri ii sheeg haddii aan hurdo oo iskaci si aan uga takhaluso, aniga ayaa dilayee. Cali Agoon waa uu iska seexday, ilaan socod dheer ayuu soo galay. bahalkii ayaa yimid, waa uu soo qayliyey, waxa uu isku diyaarinayaa gabadha loo diyaariyey si uu ugu qadeeyo. gabadhii waa ay qaylisay, hase ahaatee Cali waa uu maqli waayey. kadib tin ayaa ka jartay madaxiisa oo ay la yaabtay, tintiisa oo ahayd tin dahabi ah. waa uu kici waayey, bahalkiina uu soo dhowaaday. gabadhii aad ayay isugu naxday, waa ay oysay. Cali Agoon ooyintii ayuu ku kacay, gabadhii ayuuna canaantay oo uu ku yidhi maxaad noo kicin weyday? hadda waan sigannay labadeennuba, bahalku waa uu na cuni gaaray, inuu nagu qadeeyay ayuu ku sigtay. adigu xagga iska tag ayuu ku yidhi, aniga ayaa ka takhalusayee. Cali Agoon ceelkii ayuu gudaha ugu dhaadhacay, qorigiisii ayuu diyaarsaday. abeesadii oo diyaarsan iskuna diyaarisay gabadhii ay cuni lahayd ayuu xabad ku riday, madax ayay ka haleeshay. waxa ay tidhi madaxaygii dhabta ahaa ma ahan. Cali Agoon ayaa ku yidhi anigana xabaddeedii dhabta ahayd ma ahan. xabad kale ay ku riday, madaxii kale ayay uga dhacday. waxa ay tidhi madaxaygii dhabta ahaa ma ahan. isaguna sidii oo kale waxa uu ku yidhi tuurmadeedii dhabta ahayd ma ahan. xabad kale ayuu ku riday, madaxii saddexaad ayuu ka haleelay xabaddii kale. sidii uu mar walba madax uga takhalusayay ayuu madaxii toddobaad oo halkaa kii ugu dambeeyey ahaa ka toogtay. marka ayay waxay tidhi hadda ayaad dishay madaxaygii xaqiiqda ahaa. isagiina waxa uu yidhi xabaddeedii saxda ahayd ayaan kugu riday. halkaa ayuu abeesadii uga takhalusay, gabadhiina ku badbaadiyey. gabadhu waxa ay ahayd gabadha boqorka. halkii waa ay ka tagtay, gurigeedii ayaa ay aaday iyadoo nabad ah. Cali Agoon isaguna halkii waa uu ka dhaqaaqay markii uu bahalkii toogtay. gabadhii markii ay tuulada gashay, dadkii ayaa ku soo xoomay iyaga oo dhahaya annaga gabdhaheennii naftoodii ayaa ay horeen, gabadha boqorkana doorkeedii ayaa la joogaa. waana ay diiday inay ceelka isku tuurto. sidan cadaalad ma ahan. boqorkii tuulada oo ah boqor caadil ah ayaa arkay gabadhiisa oo nabad ah iyo dadkii oo wada xanaaqsan. waa ay soo carartay, ma aanay biimeenin nafteedii. sidan cadaalad ma ahan ayay dhahayeen. boqorkii aad ayuu u xanaaqay, qorigiisii ayuu soo qaatay, gabadhii ayuuna rabay inuu dilo. gabadhii aad ayay u qaylisay iyadoo leh aabe ma diidin inaan ceelka isku tuuro, ee bahalkii Cali ayaa dilay. mar allaale markii ay dadkii maqleen aad ayay u farxeen, sababtoo ah abeesadii dhibtay oo gabdhaha ka dhammaysay haddii laga takhalusay. boqorkii gabadhii ayuu la hadlay oo uu ku yidhi inakeen Cali aan raadine si aan ugu mahadcelinno oo aan abaalmarin u siiyo. haddii ay ceelka yimaadeen ma aanay arag, ilaan isla markiiba waa uu dhaqaaqaye. boqorkii ogeysiis ayuu bixiyey, waxa uuna yidhi ragga tuulada dhammaan ha ii yimaadaan qasrigayga si aan ugu ogaado ninka bahalka dilay oo aan ugu abaalgudo. raggii oo idil qasrigii ayaa isugu yimaadeen, iyaga oo mid waliba uu leeyahay aniga ayaa dilay, maya aniga ayaa dilay, waa beentii ninkan, aniga ayaa dilay abeesada. gabadha ayuu la hadlay oo ku yidhi taabo ninka bahalka dilay. gabadhii raggii ayay ku tiri iska qaaday cimaamadaha, mid walba timihiisa ayaan eegayaa. waxayna ay haysay tintii Cali oo dahabiga ahayd. qof u tin eg ayaa ay ka weysay, waxaana ay aabbeed ku tiri aabbo ma hayo ninkii bahalka dilay. boqorkii aad ayaa u yaabay, waxa uu la hadlay khaadimiintii, waxa uu ku yidhi dhammaan raggii tuulada ma wada keenteen? waxay ku jawaabeen maya boqor, hal nin oo aan la garanaynin ayaa masjidka jiifo, kaana qaabkiisa xitaa haddii aan eegnay qoraanjinin dili kara umeeka. boqorkii aad ayuu u xanaaqay, soo wada ninka ayuu ku amray. waa la keenay, gabadhii ayuu boqorkii u weydiiyey. sidii raggii hore ayaa ay ku amartay in cimaamadu uu iska qaado. waxa ay isbarbardhigtay tintii iyo tintiisa. waxa ay tiri waa Cali, waa ninka dilay bahalka. aad ayuu u farxay boqorkii, waxa uuna Cali Agoon ka dalbaday inuu u guuriyo gabadhiisa. Cali waa uu aqbalay, sidii ayaa loogu dhigay
aroos heer caalami ah oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. waxa uu arooska socday 7 maalmood. cali agoon waxa uu bilaabay nolol aad u sareysa. waxa uu guursaday ina boqor, isaguna waxa uu noqday ina boqor. cali waxay u dhashay ilmo badan. caligii kale waa noolaa. waxa uu mar walba eegayay geedkii tiinka ahaa. waxa uu arkayay in geedku cagaaran yahay. marka ayuu ogaanayay in walaalkii nolol fiican uu ku nool yahay. maalintii dambe ayaa cali agoon u damcay inuu ugaarasho aado. boqorkii ayaa la hadlay oo ku yidhi buurta xaggeeda ha isku aadin, bahal ayaa joogo oo qofka aado sooma laabto. cali agoon warka boqorka dhegjaraq umuusan siinin. waxa uu isku hubaa geesinimadiisii. cali waxa uu u baxay inuu agaarashadii aado. dhankii iyo buurihi ayaa uu aaday. cali waa uu baxay isaga oo kooraystay faraskiisa. waxa uu hor u sii watay eeygiisa iyo hubkiisii. mar allaale markii uu tegay buurta waxa uu arkay bahalkii waxa uu ku soo dhoweeyey faraxsanaan. waxa uuna bahalkii yidhi ina walaashay ayaa tahay, dhib ma jiro, halkan isaga xiro faraskaaga iyo eeygaaga iina soo dhowow. cali waa uu la degay. sidii ayaa uu yeelay. isla markiiba bahalkii waxa uu liqay faraskii iyo eeygii. cali oo ku dhex dhacay hooygii bahalka ayaa bahalkii maadaama uu faraskii iyo eeygii uu ka liqay u fududaatay waxyeeladiisa. sidiisa la mid ah bahalkii halkaa cali agoon geesigii ku liqay. geedkii waa uu isbedelay oo basas ayuu noqday. cali waxa uu arkay sida uu geedkii uu noqday. waxa uu ogaaday in walaalkii cali agoon dhib ku dhacay. halka ayuu faraskiisii kasoo kooraystay, soo kaxaystay eeygiisii, soona qaatay hubkiisii. cali waxa uu soo maray wadadii uu walaalkii kal hore u maray. waxa uu arkay nin ari meel ku raacayo. ninkii ayaa la hadlay oo ku yidhi war caliyow. cali waxa uu jeestay isaga oo isle waa ninku garanayo. ninkii waxa uu yidhi xaggeed aadayniyahow, ilaa ma goormo ayaan ku sugaynay, ridii aan ku siiyey aad bay u tarantay oo ari badan ayaa ay noqotay ee iga wada walaalow. cali waa uu fahmay in walaalkii wadadan uu soo maray. waxa uu ku yidhi waan kuu soo laabanayaa. halkii ninkii looda ayuu uu soo maray. sidiisa la mid ah ayaa uu ku yidhi war caliyow xaggeed aaday, neefkii lo ahaa ee aan ku siiyey waa uu batay ee iga wada lo-daada. waxa uu ku yidhi waan kuu soo laabanayaa. ninkii geel la joogay ayaa uu soo maray. isaguna sidii oo kale ayuu u canaantay, maxaa ku helay, hashaadii waa ay badatay ee iga wada walaalow geelaada. waa uu ballamiyey. markaa ayuu waxa uu ku yidhi marka aan soo laabto ayaan kaa kaxaysan doonaa. cali waxa uu galay tuuladii. dadkii tuulada aad ay u farxeen una qeyliyeen iyaga oo leh alla cali waa uu soo laabtay. boqorkii ayaana loo sheegay in cali uu soo laabtay. boqorkii aad ayuu isagan u farxay. cali waxa uu dareemay in halkan uu walaalkii deganaa, xaasna ku lahaa. qasrigii ayaa la geeyey. boqorkii ayuuna u sheegay xaqiiqda, kuna yidhi anigu caligiinii ma ihi ee cali walaalkii ayaan ahay, cali la yidhaahdo. boqorkii waxa uu u sheegay halka cali agoon uu aaday inay tahay meel keen ah oo uu bahal u joogo. bahalkiina cali cunay. cali waxa uu u jihaystay dhankii loogu tilmaamay bahalkii cunay walaalkii. cali waxa uu watay faras, eey iyo hubkiisii. waxa uu u jihaystay halkii loogu sheegay in walaalkii ugu wardambeysay oo uuna dib uga soo laabanin. cali mar allaale markii uu meeshii u tegey bahalkii ayaa arkay. bahalkii aad ayuu u farxay imaanshiyaha cali. waxa uu isku dayey inuu khiyaano sidii walaalkii. waxa uu ku yidhi soo dhowow, dhib ma jiro. hase ahaatee cali waa uu diiday. waxa uu go'aan ku gaaray inuu ka takhaluso bahalkan. waxa uu la ballamay eeygii oo uu ku yidhi labada indhood ka bixi. faraskiina waxa uu ku amar ku siiyey inuu ku tunto markii indhaha laga siibo ama laga saaro. sidii ayaa ay bilaabeen. eeygii labada indhood ayuu ka bixiyey bahalkii, halkaana indhoole ayuu ku noqday. faraskii ayaa ku tuntay ilaa naftii kusii dabayaraato. cali ayaa dhammaystiray, halkaana bahalkii ku baktiyey. cali waxa uu bilaabay in caloosha bahalka u qalo. waxa uu ugu tegey walaalkii cali agoon oo nool. hase ahaatee faraskii iyo eeygiina waa ay dhinteen. cali agoon aad ayuu u daciif u noqday, waana uu yaryaraaday. cali waxa uu bilaabay inuu walaalkii xanaaneeyo. shimbiraha ayuu u dilaa, halkan ku quudiyaa. cali agoon waa u boogsaday. sidiisii ayuu ku soo laabtay. cali iyo cali agoon waa ay soo baxeen. waxa ayna yimaadeen tuuladii.
aad ayaa loogu farxay soo nabad noqoshadooda, aad ayaana loo soo dhaweeyey. gabadhii boqor oo cali agoon qabay waxa ay ku wareertay kala garashada labadoodan maadaama ay aad isugu egyihiin iskuna magac yihiin. waxa ay u tagtay sheekhii tuulada una sheegtay dhibka haysto. sheekhii waxa uu u sheegay hab ay ku garan karto oo ahaa in alla bari ay samayso oo ay isugu yeerto dadka tuulada ku nool, kadibna ay alaab soo qaado ragga dhexdooda, kadibna ay iska dhigtoon qof aan qaadi karin kana istaagto iskuna dayo caawinteeda. kaa ayaa ah ninka iyada qabo ee calaamayso ayaa uu ku yiri. sidii ayaa ay yeeshay. cali agoon ayaana soo istaagay si uu xaaskiisii u caawiyo, sidaan ku aqoonsatay calaamadna ugu yeeratay. cali agoon iyo xaaskiisa waxa ay dooneen inay safar u aadaan halkii cali agoon uu ka yimaaday. boqorkii aad ayuu u diyaariyey, hadiyado badan ayaa uu siiyey, xoolo, ari, lo, wax walba isugu jira. waa ay soo baxeen cali agoon, xaaskii iyo caruurtoodii waxay soo mareen ninkii hasha u ballanqaaday. waxa uu siiyey geel fara badan oo hashii ay dhashay. sidoo kale waxa ay soo mareen ninkii u ballanqaaday saca, waxa uu siiyey lo fara badan oo sicii ka farcantay. ninkii rida u ballanqaaday ayaa ay soo mareen, waxa uu siiyey ari fara badan oo ay dhashay ridii waagii uu siiyey. halkaa waxa uu cali agoon ku noqday taajirkii ugu sarreeyey xilliga caalamka, waxa uuna ku noolaaday nolol qiimo badan oo aad u sareyso. xaaskiisii ina boqor iyo caruur fara badan. laga bilow xilliga cali agoon wuxuu isku bedelay cali taajir iyo cali boqor. halkan ayaa inoogu soo idlaatay qisadii cali agoon oo ahayd qiso aad u weyn kuna cibro qaadasho leh in nin agoon ah oo la ciilo lagana eexdo ilaahay sida u galay siiyeyna nolol tii hore ka habboon.